ujeedaan halkan waxay ku soo bandhigayaan xadro iyo sidoo kale diini iyagoona wata calanka suubaneena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee oo ku xardhan yahay magaca suubaneena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee waa dariiqooyinka kala duwan ee culummada ahlu sunna wal jameeca kuwaas oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ee ku yaala magaalada muqdisho socod dheer ayaan ku dhex maraynaa sufuuf kasta ama saf kasta oo ka mid ah goobaha kala duwan ee culummadu ay ku xadreynayaan ama ay ku digrinayaan halkan aan geli doono waa qayb ka mid ah meelaha u jaran oo ay culummadu ku xadreynayaan halkan dadka jooga waxay isugu jiraan rag iyo dumar dhalinyaro caruur iyadoona dumarku loo gaar yeelay goobo gaar ah oo ay si gaara ugu xadreynayaan halka raggana loo gaar yeelay goobo gaar ah oo iyaguna ay ku xadreynayaan runtii suubaneena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayay sanad kasta xilligan oo kale ku dhisaan halkan oo ah fagaaraha taalada daljirka daaqsoon ee magaalada muqdisho waxaan sidoo kale tegaynaa meel ka mid ah meelaha iyaguna ay ka socoto xadrada iyadoona rag iyo dumar halkan goobjoog oo yihiin dumarka qaybtan gaarka ah ayaa loo xiray sidaad ujeedaan oo halkan ayay ku xadreynayaan iyagoona soo bandhigaya laftirkooda xuska suubaneena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee runtii dumarka halkan jooga waa qayb ka mid ah dumarka iyaguna qaybta ka ah xuska suubaneena qayb kale oo gadaalana waxay iyaguna joogaan ama diyaar u yihiin inay xusaan suubaneena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee oo sanad kasta maanta oo kale ama xilligan oo kale lagu xuso dhammaan gabdhaha iyo sidoo kale dumarka Soomaaliyeed ee halkan ku sugan xadrada ayay qayb ka yihiin hadda waxaan aadaynaa qaybta sare oo iyaduna ka mid ah ama qaybta ugu sareysa oo iyaduna ka mid ah goobaha xadradu ay ka socoto oo culummada ay ku xadreynayaan inagoona dhaxgeli doona culummada iyo sidoo kale sida ay u xadreynayaan inkastoo jaam iyo ciriiri fara badan uu jiro haddana waxaan isku dayaynaa inaan gudaha u galno goobta ay ku xadreynayaan culummada ama dariiqooyinka kala duwan ee culummada ahlu sunna wal jameeca iyagoo aad u fara badan ayaana doonaynaa inaan dhex galno halkan iga dambaysa waa ujeedaan waa qaybta sare oo ay ku sugan yihiin hoggaanka culummada dariiqooyinka kala duwan ee culummada ahlu sunna wal jameeca iyadoona hadda gabagabo uu marayo xuskaya suubaneena maxamed gaarigan waxaa saaran dhalinyaro caruur rag iyo dumar iyo sidoo kale dad kale aad u fara badan oo ka mid ah dariiqooyinka kala duwan ee culummada ahlu sunna wal jameeca waxaan mikrofoonka la dhex qaadayaa qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dariiqooyinka kala duwan ee culummada ahlu sunna wal jameeca dadka halkan saaran waxaa ka mid ah caruur aad u da'yar kuwaas oo ka qayb qaadanaya xuska suubaneena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee kuwaas oo ay ku muujinayaan maanta qaybtan sarana waxaa saaran hoggaanka culummada oo iyagu qasiidooyinka qaadaya sidoo kalena xadrada hoggaaminaya gaariganna waxaa ku xusan ama ku xardhan magaca suubaneena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee iyadoona dhammaan dadka kala duwan ee fagaaraha taalada daljirkaasna isugu soo baxay ay yihiin kuwo si gaar ah u diyaarsan sidoo kale gaadiidkan waxaa saaran qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan xirta dariiqooyinka kala duwan ee culummada ahlu sunna wal jameeca sidaad ujeedaan iyagoona muujinaya sida ay ugu faraxsan yihiin in maanta oo kale ay ka soo qayb galaan xuska oo ay ku muujiyaan dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin waxaan mikrofoonka la dhex qaadaynaa qaar ka mid ah dariiqooyinka kala duwan ee culummada ahlu sunna wal jameeca iyadoona xadradu hadda ay meel gabagaba ah marayso qaar ka mid ah shacabka ayaan la hadlayaa inagoona dareenkooda wax ka weydiin doono iyo maalintan waa dhawahay markii ugu horeyso dhammaan axbaabta waan salaamahayaa iyo culimmada nagu xiran maanta waxaan halkaan iskugu soo baxnay dhammaantayniga wadooyinka waaweyn magaalada muqdisho socod aan ugu soo bilownay ugu dambeyn halkaan aan ugu soo gabagabeynay wax kale ma ahan nabigeena calayhi salaatu wasalaam kalgaceylkiisa iyo maxabadiisa ihtifaalkiisa aan halkaan iskugu nimaanay taasna hadda dadka muslimiinta ah nicmada ugu weyn oo la siiyay koonkan kusoo daahirtay waayo alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay wa ayu nicmatin acdamu biburuuzi hada nabiy nicmadee baa ka weynan badan nabiga soo dhalashiisa oo soo bixitaankiisa
marka ma jirto wax loo barbardhigi karo oo nicmadan oo maanta ilaahay uuna siiyey inaan aad ugu istaagno weliba banaanka hadda iskaga soo baxnay waan socnaa unay haddaan diyaarado awoodi lahayn maanta oo kale waxaa ay noqon lahayd inaan diyaarado ku duulno oo calamo aan nebiga magaciisa ku qoran aan ku xirno diyaaradaha sidaan ay kasii weyn aan u dabaaldegno insha allah waxaan sii rajayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo dabaaldegida soo socdana sidaan isa ka duwan inaan u dabaaldegi doonno si fiican ayaan muslimiinta meel walba ay joogaanna uga hambalyeynayna waxaan leenahay hambalyo dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam aadan u mahadsan wallahi dadkaas horta waxaan leenahay dadka soo horjeedo cilmigooda ma gaarin halkaan inay nebiga weynayaan waayo nebiga in la weyn naftirkiisa waxay u baahan tahay ruuxdii nebiga iyo ruuxdaada inay waasile ay leedahay aad xiriirsanaato waayo nebiga adduunkan uu ku intiqaalay laakiin ruuxdiisa ma intiqaalin aniga marka ruuxdayna ay ruuxdii nebiga ay la xiriirtaa taas ayay mar walba noo sii dhoweynaysaa mar walba cishqiga iyo kalgacaylka nebiga inaan helno marka waxaan leenahay dadka diidaya war ma gaarina cilmigan soo gaara waa cilmi idinka weyn haddii aad gaarteenna nebiga kutubta dib ugu laabta wax aqriya fiiriya culimmadu waxay qoreen wax meel walba la samaynayo oo tan ka darna la sameeyaa laakiin tan nebi muxamed aabliiriba afdalul khalqi cala alambiyaa waay afdalul khalqi cala alidlaaq waay yacni khalqiga dhan duudub ahaan ninka ugu fadliga badan haddii la yidhi ha layskaga soo baxo wax kaloo maalayacni inta layskaga soo baxi ayadaa ka weyn marka walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iskalena soo waafajiyey maanta xafladan aad ku qaaliga oo weynka walaalayaal mar kastaba waxaa waaye munaasabooyinku waa kala bedelan yihiin haddii maalinta ramadaanka ay timaado maalmaha ramadaanka munaasabaheeda ayaa laga hadlaa haddii ciidulfidri iyo ciiduladxa haddii ay timaado munaasabahooda laga hadlaa maalin kastaba munaasabadda ay leedaha laga hadlaa maanta waxaa laga hadlayaa oo aad iyo aad ummadda muslimiinta ay ugu faraxsan yihiin maalinta nebiga calayhi salaatu wasalaam adduunkan ku soo biiray oo ifkan ku soo biiray ayay ummadda muslimiinta ayay ku soo weynaynayaan ilaahay subxaanahu watacaala marka ayaa mahad iska leh ummadda muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ahlan wasahlan wamaraxaban intaa meesha anugu maana waxaa waaye dhalashada xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maalintan ka soo qayb galnay kini badanna waa imaan doonaa intay naf nugu jirtana ma dayn doono inaan dhalashada xabiibka u dabaaldegno waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay intaanoo qalqiga inay meeshaan iskugu imaatay aynu u imaaday dhalashada xabiibka calayhi salaatu wasalaam kini badanna waan samayn doonaa waan u soo laalaaba doonaa insha allah aninku waa soo lugeen waxaan ka imaanay kaaraan halahan waa soo socon waxaan u soo socon waxaa waaye xamaasad iyo waxaa waaye farxad aan u qabno dhalashada xabiibka inaan u dabaaldegno weynayntiisa waan u soo lugaynay dareenkeena aad iyo aad ayuu u gacsan yahay ma la cabiri karo wax hadal iyo lagu qiyaasi karana ma aha maadaama aan u dabaaldegoohayna kownkan shaqsigii uu fadliga badnay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam bal maanta in halkaan timaadaan iyo waddooyinka aad soo marteen iyo dhirirkooda iyo sida dareenkiina maanta waxaa farxad weyni ah inaan anoo ka soo lugay kilomitir 4 aan imaaday darjirka daasoon intaasna u soo socday dhalashada nabigeena inaan weyneeyo amaantaas maankani maxamed u dhashay shucuur aan muujiyo shucuurtiina maxamed saan musliminimada aan muujiyo aan dhalashada nabi maxamed istifaalkiisu dabaaldegay maxaad fariin oo diraysaa dadka qaar waxay leeyihiin arrintan waa bidco iyo arrimo kale waxaan leeyahay dadkaas maalmaha kaleenta oo dabaaldegtaan sida maalintii nimcada ilaahay oo nasiyo wadamada kaleenta aan xorriyadda ka qaadanay maanta kasii weyn oo ah maantii islaamnimada nala soo dirsiisiyey nabi maxamed koonka lagu soo la keenay waa inaad u dabaaldegtaan nabi maxamed marka annagu hadda ilaahay intuu sameeyey oo adduunka isbeddelku ugu sameeyey maba samayn karna intii taagteenna ah unbaan samaynaynaa isku imaadkaa marka wax kale ma ahin sidaan oo kale in laisugu yimaado oo nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii u dhashay laga sheekeeyo ahlu maka marka la yidhaahdo waad garanaysaan hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam maka ayuu ku dhashay halka maka uu ku dhashay ahlu maka caadadooda waxay ahayd ninka la yidhaahdo ibnu jubayr la yidhaahdo rixladiisa wuxuu ku soo qaadayaa sanadka markuu ahaa 578 markii hijrada ahayd buu ka soo baxay dhulka andalus la yidhaahdo rixladiisuu ka soo bilaabay markaabuu maka soo gaaray markuu maku yimid wuxuu ka sheekeeyey kitaabkiisa rixlatu ibnu jubayr la yidhaahdo mashaahidii maka oo dhan uu ka sheekeeyey markaabuu wuxuu yidhi ahlu maka waxay leeyihiin buu yidhi maalin khaas ah oo meeshii nabigu uu ku dhashay ay isugu tagaan calayhi salaatu wasalaam hadda waa 578 hijriyada markay ahayd waa 1000 sano ka hor wax ku dhoweeyaan ay ahlu maka sidaas oo kale isugu imaanayeen maalintii nabigu uu dhashay rabiul awwal ayadoo idnayn ay tahay
meeshas baan isugu imaanaya markaasuu leeyahay ninka ibnu jubayr ah waxa weeyaan maalinta waxa waaye sanadkaas oo kale markuu ka soo wareegto yowmun mashhuudun ayuu ka cabiray oo bimaka daa'iman weliba anigaas u adeegsaday maalintaas waxay ahayd buu yidhi la kulmay maalin mashhuud ah oo la soo xaadiray oo ahlu maka ay soo xaadireen hadda waad og tihiin sanadkii shanaad wuxuu ku jiraa min alquruun aldahabiya cusuurtii aad dahabiga u ahayd oo culummadii waaweyneed ee loo soo naqlisay culumta iyo diinta loo soo naqlisay ay ku jireen badankooda raggii ugu waaweynaa maca daalika halkaa baa laisugu imaanayey yowmun mashhuud bay ahayd nabiga baa halkaa lagu xusayey sida halkaan oo kale laisugu yimid baa kelimaad laga jeedinayey halkii baa la barakaysanaya nabigu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam الإمام حافظ ابن جزري وتقالان شيخ القراء وحافظ كي وينا أسمر سلوكله وصول نقليي قرني سديف بقول جريو إن أهرمتها على نوعاس يتقن كاس نوعاس إن مسوي لقوا إن بوصول نقليي وحوميني ما نمتي نبي وقول الشيء أيام كلك ماشي أيام لكل بيوميني مكاني جوجو مركا أهل مكة ما نمتاس وحيو أهد بويني يوم مشهود حتى عليه واتقي بولي على الإمام الحافظ ابن الجزري عليه رحمة الله كتاب كيس عنه التعريف كالليل هذا أيان يذكر الأخرية بويني عرضي النبي نقول لنا يا بركة يستمويني بركة بركة ينسوا كارتي إلى يومنا هذا وحسوس تابويني بركة مرور أقصى الله مجربوين سنة ولمو أيان ماشي ما جربويني الإمام ابن الجزري بركة سؤول ليه أهل مكة مالين تاس وحيرو أهد مالين عيد وقصر الرئيسة يقول أهد با عيد حتى وقصر الرئيسة احتفال أهل يدبالدك أهل عيده وقصر الرئيسة بوليه بركة الإمام الحافظ ابن الجزري عليه رحمة الله أنه مركز سيدان وكان نسوي ما لهالكان أنه النبي وينين عليه الصلاة والسلام وحكى لماشا أنما كيرين iyo niyo kala ku joog nabaasha nama jirto culimo kala ay dambeyn doonto marka nabiga la weyneeyay calayhi salaatu wasalaam waa wax ilaahay loo wadayanayo waa saxaabada loo wadayanayo Urwat ibn Mas'uud war garanaysaan markuu wafdi ahaan ugu yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam sulhul Hudaybiya asigoo safiir ah oo kufaar Quraysh ay soo dirtay intuusan islaamin koor Urwat ibn Mas'uud al-Thaqafi wuxuu leeyahay wuxuu indheeyay majliskii saxaabada nabiga ayuu indheeyay markaa wuxuu arkay نبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سووينين السياد عاديهن عروة بن مسعود وحوها إن ما لبدا تغي بقرطوية فربدا تغي وحوين مركو ما شكته وثيقدي إيو أو إعلامي وكوحي أيو لابتي مركا قوم في سمركم لابتي مركا إسلام موسى نهين دبوا في إسلامي دوناين مركا سووز بسوير وحوين يا قوم كيديو وحوين عليهم محال وفتيان وتغيبويني ninka la yiraahdo qaysar la yiraahdo kisra baan waqtiyan uu tagay buu yiri najaashi baan uu tagay buu yiri ru'asaa al-aalam baan uu tagay buu yiri ma arkin buu yiri ma ra'aytu min an-nas ahadan yu'adhibu ahadan ka ta'dimi ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka ta'dimi ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma la arag buu yiri qof sidaas oo kale weyneynayo oo boqorada caalamka kale weyneysiin asxaabta nabiga alayhi salatu wasalaam ay nabigooda weyneynayaan marka anaga halka wax kale uma imaan halkan baa u nimid in nabiga maalintii uu dhashay aan dhahno waa maalintii khayr Allah ku siiyay in dhahno shukran in dhahno nabiga ilaahay uu dhahnayo u baan ku fadhinaa oo aanu soo fadhiisanay oo aanu isugu nimid si aan ilaahay tabaaraka wa tacaala u xusno oo aan ugu mahadino wixii nagu hanuuniyay oo islaamka ah naguna galaday rasuulku wuxuu yiri allahi ma ajlasakum illa dhaak ilaahay baa intu dhaariyay ma inta mooyaan ma wax kale idin fadhiisiyay maya markaas saxaabadu yiraahdeen wallahi waan ku dhaaranay waxaan inta ahayn isuguma keenay waxa weey nama fadhiisin rasuulku wuxuu yiri ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum idii ma dhaarin tuhma idinka aan idin tuhmaysanayo waan isla imaraha wax kale u fadhiyaan walakin jaani jibriil fa akhbarani anna allaha yubahi bikum al malaa'ika allahu akbar waxa yimid maxay malaku jibriil baa yimid markaas uu ii waramay oo uu sheegay in ilaahay tabaaraka wa tacaala oo idinku faanayo malaa'ikta idinku faanayo muxuu yiri imaam nawawi radiyallahu tabaaraka wa tacaala anhu oo idinku faanayo waxa loo jeedaa fadligiina ayuu u muujinaya ayaa loo jeedaa saadaqtii saxaabada radiyallahu calayhim way u fadhiisan jireen way isugu iman jireen in ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu mahadiyaan mucayinka waaweyn inaguna sidaas la eegay ilaahay tabaaraka wa tacaala dartii wax kala maanta isugu keenay ما سياسة بقى سجن كانتي ما عرق بقى سجن كاني ما شيكة كلا سجن كانتي واحد سجن كاني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن ينقصنا
ولا ليال إلهي تبارك وتعالى أن معنا أيها يستنو يينا نشوشين هذيك لو حين نقول عيد أنت سير يكون علي قوم كنبي الله عيسى عليه السلام مركي الرهبانية وحويان يا وحويان زودك يتصور نبلا وحويان أي لين مادين مركي دم أي كتجين إلى هو كعناتي تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلهي محلي فما رعوها حق رعايتها ما إلى تيم وحويان مطنيب ما إلى إلهي أين إلى أي موتى مالك ومال العلماء وحويان إسلامكم متكهر تكسر تيسر وإنه حرام قالوا يكرهوا كذا أو حويان تصورين قالوا يكرهوا سافر كرهوا كذا لكن علماء الإسلام كإسلامي خلافين لقى صار بلا بمرك إلا بلا بي قرن يجي تطوال هجرية نيكي لون تري وحويان بقرتي إربيل الملك المظفر نيكي علماء يكون أمانين إنه حسك النبي جودك تري لقى صار بلا بو إلى قرية ضم وحويان أي مادين أو قرنية فربنا يود حيين علماء الإسلام كإسلامي خلافين النبي صلى الله عليه وسلم مالك ورشي الله حسي كرو من عند آخرهم دماتو حليه هي الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه سوي إمام سيودو كقصة نقلنا كتاب كيس حاوية الحاوي للفتاوي وحليه وحلو ويديي كورن ابن حجر كورن موليدك وحيري عمل كمولدك أصلا أهان وواحد يمكن يمدوني طبعا وصلاص لما أقوم بوري حلي قصرف كصالحها هلقا وحبو صاريا واحد ما قراي شيكتان ايها فاطمين باب الابي وبنتو حلي امام ابن حجر العسقلاني لما اقوم لكنه اشتمل على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة قفي وحويا كد دالا اعماش كودا وناغسن انه مالكا وسميو سنه انغ مانتا اي سغني الهي بن حسينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ان امانينا سيرديسي وناغسنيد عدونيد بين وحويا اسعسوسينينا فضلي صدقينو بخينينا مساكينتا iyo danyarta aynu caawinayna iyo hilba aynu siinayna wuxuu yiri faman taharra fi amaliha almahasin wa tajannaba didaha kanat bid'atan hasana qofkii sidaas oo kala sameeya waxay noqonaysaa waa bidco wanaagsan waa bidco aan ka soo horjeedin usuulsha iyo waxa weeyaan qawaacida sharciga aan ka soo horjeedin weey ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ugu mahadino ilaahay tabaaraka wa tacaala aynu waxa weeyaan nabigiisa aynu weynayno sidaa maanta aynu u bilownay yeynaan joojinin wadamada islaamku wadamo badan baa inaga hormaray waxa weeye wadamadeena geeska Afrika wadamo badan ayaa inaga hormaray waxay mudnayd in magaalada oo dhan maalinka aan waxba la qaban shaqo aan la qabanay maxamed xuskiisa mooyaane laakiin hadba intii taagteen baynu rogmanaynaa tag walbaaba taagtiibu rogmadaa qof walbaaba waxa weeyaan taagtiibu dhaw ay waxa weeyaan uu socdaa taagteen baynu rogmanaynaa dalalka kale ee muslimkaana waa in sida rasuulku weynaya sallallahu alayhi wasallam yaa la inooga dheerayn ilaahay fadligiisa wasaabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu yaa la inooga dheerayn rasuulka sallallahu alayhi wasallam amaantiisa hadii aynu Soomaalinahay meel kasto inuu joogno yaa la inooga dheerayn imaanin faan kale uma imaanin waxaanu nimid nabigaas rasuulka salawaatullaahi wasalaamu alayhi inaan tacdiim minno تعديمكيسا إلهي درجة نغسيو وحانا كورنا أرنتاس إنو نو شفيع دونه أو نبي كلون نو شفيعي أو سنجري دونينو انت كلا عذر دارنا إيسو أساقو سو عذر دارنين أو سجود لدعايو نو شفيعي شفيع ديسا الله نغو إرزاقو شفيع ديسا الله نغو إرزاقو كوي شفاعدي سهل إليها نقدره دانت لنا انت أسواي وانا الأكتهين وانا تكور قبتين قفتان اسمه قيسيهين وانا اسكيس عند الترين إنه رسولكم صلوات الله والسلام عليه أو شفاعي وانا لو أقيهي مركز شفاعة أسعد مضى كوي شفاعة إليها نقدره وحانكو سوكوبا أخيارتي فضلي قبلنا أو كهضل لهاد أو ماركت أو شرف لهادين كهضلان أيات جوغا مركاني أون رواق لي يريان ويستاغي وحسن قطمة نبي قاس فضلي قبلنا إنان وينين أون تعظيمنا أون شرف تيسانكو أسوه حبنا قمر بيه أنكو أون شرف كو قارنو أون ماركتا
arrintaasu arrin aniga oo noodana ay tahay inaan isku boorogaraamino mar walbana aan ka soo qayb galno war diyaaruma ma u nahay inaan ka soo wada qayb galno wabilaahi tawfiiq dambeyn waxaa soo gabagaboobay munaasabadii ballaarneed oo boqolaal ka mid ah culimmada ahlu sunna wal jamaaca qaybahooda kala duwan ay ku xusan yihiin suubanaheena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee fagaaraha dadka daasoon sidaad u jeedaan waa faaruq hadda oo waa ay ka sii baxayaan dadku gobolka ayaana sii dhacaya iyadoona dadkii halkan yimid ama galabta soo xaadiray ilaa ay waqtigan joogayna ay dib ugu laabanayaan guryahoodii qaybtan iga dambaysa waxaa ku sugnaa dhalinyaro aad u fara badan rag iyo dumar culummo mashaayikh qaybaha kala duwan culimmada ahlu sunna wal jamaaca qaybtan iga dambaysay sidoo kale waxaa joogay boqolaal ka mid ah culimmada ahlu sunna wal jamaaca kuwaas oo iyaguna halkan ku soo bandhigayay xuska suubanaheena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee qaybtan iga dambaysa sidoo kale waxaa ku sugnaa boqolaal ka mid ah culimmada ahlu sunna wal jamaaca kuwaas oo iyaguna xusayay suubanaheena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee sanad kasta waqtigan oo kale ayuu halkan xuska uu ka dhacaa iyadoona dhammaan dadkii halkan joogay dib ay ugu laabteen guryahooda oo maanta ay ahayd mid ka mid ah maalmahoodii ugu ballaarnaa iyo maalintii ugu weyneed iyo xuska suubanaheena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee hadduu hesho macluumaad ugu dambeyntii waad ku mahadsantihiin daawashadiina halkan ku soo biir like saar subscribe ku soo biir halkan si aad u hesho wax kasta iyo wax walba